war degdega magaalada Baydhabo ee gobolka Baay dagaal lixaad la ayaa ka dhacaya ciidankii lafta garanaya isku dhaarsay dagaal toos ah ay gudaha ku soo galaan iyada oo maalinimadii shalay ilaa iyo xalayna dagaaladii dhacay markaasi lagu kala qabsaday maxaabiis ciidan lafta garan kuwiisa markaasi ka tirsan ayaa gacanta ku dhigay ciidan kuwa ka aadan madoobe ka tirsan daryanka hubka culus ayaa habeennimadii xalay Baydhabo sidaan looga maqlayay haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay qasaaraha inta uu leeyahay madaafiic la isu adeegsaday iyo dagaal foolka fool oo ka socanayo gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ma aha markii ugu horeysay ee dhacdan ay dhacayso toddobaadii ugu dambeeyay oo dhan sidan ay fawdo iyo markaasi jahawareer ugu jirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay madaxweyne Xashi Maxamuud wuxuu dalacsiyay 3 sarkaal oo ku shahiiday furimaha dagaalka waxaa ka mid ah raggii guutooyinka 8aad iyo 9aad ee maalin jimca lagu dilay duleedka Baydhabo waa la dalacsiyay qof geeriyooday dalacsiintiisu maxay micno ah oo ay sameynaysaa aniga ku hay faa'iido aad u weyn ay sameynaysaa qofka in isagoo dhintay la dalacsiyaba inkastoo darajadaasi aysan aakhira ugu horeen haddana adduunka ay wax weyn anfacaysaa waxaan isla eegaynaa madaxweyne Xashi Maxamuud dalacsiintiisaasi dagaalada dhacaya mas'uuliyadooda cid qaadaysa waa magaalada ay ku laabtay ninka la yiraahdo Aadan Madoobe wuxuu diyaar u yahay inuu sii xijisto kursigiisa lafta garan iyo ciidankiisu waxay isku dhaarsadeen in xukunka la dhaafiyo Aadan Madoobe laakiin isagu wali waa jihaadaya adkaysanaya dagaalamaya wuxuu diyaar u yahay si difaacashada kursigiisa si toos ah ayaan u tageynaa Baydhabo waxaan kaaga soo warramayaa wararkii ugu dambeeyay halkaas ka imaanaya soo dhawow saaxib waa subax markaasi salaasa 23 June 2026 barnaamijyadeena si faafi oo like star si share gare sidoo kale channelka ku soo biir oo subscribe soo dhaw maasanta waxaan ku bilaabayaa sida hordhaca muuqaalkayga baad ku daawateen tan iyo xalay dagaal culus ayaa ka socda magaalada Baydhabo gudaheeda iyo duleedkeeda waxaana tira madaafiic iska soo hormariyay ciidanka Cabdicaziz lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo oo dhowr iyo 10 kiiloomitir masaafo u jira halkaas waxaan waahlay in ay xaqiijinayaan in ciidankii ugu badnaa ee markaasi ka tirsan kuwa Cabdicaziz lafta gareen taabacsan ee beeshiisa u badan ay madaafiic iyo sidoo kale tiro hoobiyaal ku soo garaaceen gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Baay taas waxay dhalisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo ugu dambeynna ay sababtay in gudaha magaalada ay saakay rasaastu ka dhacayso xalay oo kaliya dagaalkan kuma akeen labadii maalin ee la soo dhaafay iyo intii Aadan Madoobe uu ku maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xukunkii meesha ka baxay ee Cabdicaziz lafta garan ayaa isku dayay in si awood ay ku qabsadaan gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Baay wali aysan suuro galan waxa muuqanaysa in isku diyaarinayaan dagaal culus oo ay la galaan markaasi dawladda federaaliga ah iyo sidoo kale Aadan Madoobe ayaa kursiga ku qaatay qaab awood oo tii lafta garan aan waxba ka duwaneen dad badan waxay ku tilmaameen in ay tahay markaasi doorasho isku caanashuba oo dhinacyadu markaasi ay isku mid ka yihiin qofka xoog lana uu ku soo bixi karo Aadan Madoobe ama lafta garan geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda ee waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh ayaa dalacsiyay 3 sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ku geeriyooday dagaalo ka dhacay gobolada Baay iyo Jubbada Hoose ee Soomaaliya dalacaadan ayaa loo sameeyay si sharafeed ama dalacaad sharafeed ayaa lagu sheegay iyadoo madaxda dawladda ay ku amaaneen saraakiishan doorkii ay ka qaateen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo hogaamintii ay u sameeyaan ama ay ku sameeyaan ciidanka dhexdiisa ee ku sugnaa furimaha dagaalka markii ay dhinteen kadib ayay darajooyin dalacsiimo iyo abaalmarinaba muteen raggan way soo wacnaan lahayd baa la yiri iyagoo nool oo arkaya in ay helaan intaan oo dhan saraakiisha la dalacsiyay waxaa ka mid ah gaashaanle dhexe Yunus Aadan Xasan oo ahaa taliyihii hore ee guutada 9aad ee qaybta 6aad ee militariga ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa u dalacsiyay darajada gaashaanle sare waliba isaga oo geeriyooday ninkan sidoo kale gaashaanle Cali Cadow Maxamed oo ahaa taliyihii hore ee guutada 8aad qaybta 6aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo dalacsiyay darajada gaashaanle dhexe sida lagu sheegay war ka soo baxay dawladda labadan sarkaal ayaa ku geeriyooday dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo horaantii bishii ina dhaaftay xilli ay hogaaminayeen howlgallo ka dhanha Al-Shabaab oo ka socday deegaanada ku dhow magaaladaas sarkaalka saddexaad ee la dalacsiyay ayaa ah Dhamme Ibrahim Shuuriye Nuur oo ahaa taliyaha hurinta gaarka ee ciidanka danab ee ka howlgala gobolka ama gobolada Jubbooyinka madaxweynaha ayaa u dalacsiyay darajada Dhamme Ibrahim Shuuriye
ayaa ku geeriyooday howlgal ciidanka ay ka fuliyeen jubbada hoose halkaas oo ciidamada danab ay ka wadeen howlgallo lagu beegsanayay dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaanada gobolkaas dhacdadan sharafeedda ah ama dallacaadan markaasi sharafeed ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda federaalka ay sii wado dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo madaxda dowladdu ay marar badan ballanqaadeen in la maamuusi doono saraakiisha iyo askarta naftooda u hura difaaca dalka iyo howlgallada lagu sugayo amniga qof dhintay in la dallacsiiyo maxaa micnaha oo ku jira dhowr siyaaboodba waxay u tahay baa la yidhi dhiirigelin kow marka la dallacsiiyo sarkaalka ee gaashaanla sare ama gaashaanla dhexe loo dallacsiiyo waxaa kordhaya xuquuqdii uu ku lahaa dowladda caruurtiisa ayaana helaya dhaqaalo ku filan oo ay kusii noolaan karaan sanado badan waana sababta ugu mudan ee qofka marka uu geeriyoodo kadib loo dallacsiinayo saraakiisha ma go-da xuquuqdooda ee caruurta ayaga ee dhalaan ayaa qaab dhexaltooya usii qaato dowladaha casriga ahna waa sida soomaaliyana sanadadii ugu dambeeyey waa isku dayeysay tan iyo nidaamkii farmaajo 2017 muhiimadda koowaad waxaa la yidhi waa in caruurtiisu ay helaan xuquuq ka badan intii uu noolaa wixii uu heli jiray labo in saraakiisha kale ay u noqoto dhiirigelin oo aysan isdhihin haddii aad geeriyooto halkaabaa lagugu iloobaya oo caruurtaadii xaaskaagii iyo ehelkaagiiba ku dayacmayaan muhiimadaha ugu weyn waa intaabaa la yidhi ee qof geeriyooday in la dallacsiiyo iyo inaan la dallacsiin micnaba uma samayso sababtoo ah adduunyadii ay micnaha ugu lahayd inuu garaadada xirto ama markaasi laga heebeyso waa uba isaga tegay oo daar kale ayuu markaasi u musaafuray madaxweyne xasan maxamuud tani marka waa lagu ammaanay waxaana la yidhi waa tallaabo dhiirigelin mudan waana markaasi madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee inta la ogyahay taariikhda qaada tallaabo noocan aragtidaada nagu beeri seebaad u aragtaa in madaxweyne xasan maxamuud uu dallacsiinta gaarsiiyey saraakiishii geeriyootay